Waqtigu waa mid aad iyo aad u cararaya, waana calaamadaha qiyaamaha siday diinteena suuban sheegtay, waxaana ku tusaysaa sida uu isku beddelayo ee dhaqsaha badan. Bal u fiirso shalay unbaa ahayd 2019 lama aqoon faafihii darnaa ee coronavirus ee dunida halakeeyey. Sanadkaasi ayuu bilaabmay dabayaaqadiisii, laakiin shalay unbay ahayd. Haddana waxaa ka dambeeyey oo daba maray sanadkii 2020, waxaa ku xigay 2021, iyo haddaynu macasalaamin 2023. Waxaan Ilaahay weydiisanaynaa in waxaan sameynay Ilaahay subxaanahu wa tacaala naga dhaafo, waxaan qabnay laynoo barakeeyo. Sidaas dhaqsaha badan ee aadan dareemin ayuu u cararayaa waqtigu. Intaas kadib, maxaa kuu qorshaysan adiga sanadka cusub ee bilaabmay maanta 2024? Waxaan ka hadli doonaa muuqaalkan oo aan ku lafaguri doono sida aad u qorshaysan lahayd sanadkaaga cusub ee 2024. Waxaan diiradda ku saari doonaa haddii Alle weyne ogolaado qodobo dhowr ah, 4 qodob oo muhiim ah. Waa ay muhiim tahay inaad diiradda saarto sanadadan aan ku dhex jirno 24. Lambar 1, inaad hagaajisay xiriirkeeda ka dhexeeya adiga Rabbiga subxaanahu wa tacaala. Waxaa marad ma doontaa in haddii uu xumaado xiriirka idinka dhexeeya adiga iyo Rabbiga, inay noloshaadu god madow ku dhici doonto, adduun iyo aakhirana aad seegayso. Haddii uu wanaagsanaado xiriirka idinka dhexeeya adiga iyo Rabbigana, aad ku noolaanayso raaxo adduun iyo mid aakhiro. Haddaba waa inaad wanaajisaa xiriirka idinka dhexeeya adiga iyo Rabbiga sanadkan cusub ee 2024. Ku dadaal salaadaha iyo jamaacada, dikriga, sadaqada, runta, quraan akhriska iyo wixii la mid ah cibaadada. Shaydaanka iyo naftaadana khilaaf, ileen way ku hodayaan oo hawiyey kugu wadaan. Qodobka 2, waxbarashada. Waxbarashadu waa iftiinka nolosha. Hore loo yidhi aqoon la'aani waa iftiin la'aan. Carabtuna hore ugu mahmaahday alcilmu nuurun waljahlu dhulaam. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu quraankiisa ku leeyahay: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ miyay simayiin kuwa wax yaqaan iyo kuwan wax aqoon. Waqtigan casriga aynu joogno hadda waa waqti ay aad iyo aad u sahashahay, oo u sahlan tahay inaad wax barato. wax kastood u baahan tahay ayaad baran kartaa, weliba sida ugu fiican uguna dhaqsaha badan ayaad u baran kartaa. laakiin waxyaabaha kaa mashquulinaya kuu diidaya ayaa aad u badan. Haddaba qaado qaacidada shinnidu waxay isticmaashaa wax wanaagsan, waxayna soo saartaa waxa ugu macaan adduunka oo ah malabka. adna waxaad doonaysaa adigoo waqtigaaga ku luminaya, ku baabi'inaya meelaha qashinka ah sida Facebook, TikTok, Instagram iyo Snapchat, ayaad rabtaa inaad meel sare gaadho, natiijo fiican oo macaan xaqiijiso. Abadan hay'aad kala foga labadaasi. Haddaba haddii aad doonayso inaad wax barato, waa inaad qorshe saxan samaysataa oo la timaadaa, horena aad ka bilowdaa adoon waxba dib u dhigin. Iska ilaali waxyaabaha kaa mashquulinaya inaad wax barato. Shay cayimanna ku bilow, Ilaahayna subxaanahu wa tacaala tala saaro. Qodobka 3 ee aynu kaga hadli doono muuqaalkan waa dhaqaalaha. Inaad dhaqaale abuurtaa waqtigan xaadirka ah ee aan ku jirno waa waajib. Sida aad biyaha iyo neefta ugu baahan tahay ayaad ugu baahan tahay inaad dhaqaale abuurto. Horaa loo yidhi niman dhaqaale lahayni waa niman dhar xidhnayn, niman shaqaysanin shaah ma cabo. Carabtuna hore ugu mahmaahday almaalu huwa mixwarul xayaat. maalku waa udub dhexaadka nolosha. Haddaba waa inaad ku dadaashaa sanadkan cusub ee 2024 inaad ka baxda shaqaalanimada iyo baagamudanimada iyo bilaa camalka, gidaarada fadhiisiga iyo waxyaabaha la midka. aanad aasaastaa ganacsi ku gooniya. ogowna in ganacsiga loo duceeyey barakana uu qabo, allana tala saaro subxaanahu wa tacaala, waad gaadhi guul dhaqaale insha allahu tacaala. qodobka u dambeeya 4 waa jimicsiga ama exercise-ka. adduunka waxyaabaha la isku dhaafay waxaa ka mid ah exercise-ka. qurux ahaan, caafimaad ahaan, dhan kastood ka eegtaba waa mid ka mid ah tiirarka nolosha ee mahuraanka. exercise-ku waxa uu leeyahay muhiimad
caafimaad oo aad u sarreysa. Waxa uu dhimaa baruurta, stresska iyo xanuunada nafsaaniga ah. Waxa uu kor u qaadaa farxadda iyo degganaanta. Dhanka quruxda iyo qaab dhismeedka bini'aadamka ahna jidhka bini'aadamkana kor ayuu u qaadaa iyo weliba kalsoonida nafta. Haddaba waa inaad qorshahaaga sanadka cusub ku darsataa exercise-ka qayb libaax ka siisa. Gabagabadii iyo gunaanadkii waxaan ku soo gunaanadayaa haddaad doonaysa inaad horumar gaadho sirtu waa ficilka ee hadalka maaha. إلهي سبحانه وتعالى وحوله يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كوا إلهي النبي جسر رميو ما حاضو أرانيسان وحاين سمينين marka muhiimadu waxa weeye inaad waxaad ku hadasho ficilkayga la timaadaa riyo iyo rumaynteedna ficil baa u dhaxaysa leeyahay marka ku dadaal sanadkan inuu noqdo sanadkii ficilka iyo una noqdo sanadkii hadalka horeyno hadal ugu daalay oo waxaasan sameeyni qorshaasan dhiganana aan ku wareernay waa inaad sanadkan ku dadaashaa inaad wax walba ficil raaciso oo tallaabada qorshaysato haba yaraatee aad ficilka saarto nabaday. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.